بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha 2 2023 waxaan halkaan rabaa inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood kaas oo u qoran sida tan dawladda Soomaaliya waxay si dhow la socotay shirarkii wada tashi ee ka socday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool toddobaadyadii u dambeeyay oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dawladdu ka xuntahay oo aad uga xuntahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood number 1 dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaalo ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso saddex dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horay loo soo tijaabshay kuwaas oo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas'uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wada xaajoodka arrimaha la isku hayo afar dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tandadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu ayadoo ka duulaysa mabda'aad soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood shan dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood lix dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay ugu dambeyn dawladda Soomaaliya waxay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee samajeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan daminta colaadda ka soo cusboonaatay Laascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhameeyo isqancin iyo wada hadal